xarunta aqoonta dhaqanka iyo sayniska ee loo soo gaabiyo Carre Edeg. waxaad kala socon kartaa dhammaan social media sida uu leeyahay gaar ahaan YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Instagram-ka. qalooca dhalinta gasha dhanka dhaqanka iyo akhlaaqda waa subject ama waa cinwaan ku fiicnaa in takhasusaadka insaaniga yani culumtan sociology ama anthropology ama wax la nooca cid leh inay ka hadasho. cinwaanku waxa uu tilmaamayaa qalooca dhanka dhaqanka iyo akhlaaqda kaga dhaca dhalinyarada, oo qaloocaasi waxa uu keensanayaa qofku inuu ka baxo macaayiirtii ama wixii dadku ay qiimeynayeen wax ku qiimeynayeen ee bulshada agtooda wanaag iyo quruxda ka ahaa, oo u baxo wax bulshada ay u aragto wax laga xishoodo ama dhaqan xumo ah ama bulshada ku keeni kara raad aan fiicnayn. inxiraafka dhallinyarada ku dhaca wuu tiro badan yahay. inxiraafaad jinsiya ayaa dhici kara, waxaa dhici kara inxiraaf xagga mucaamalaadka ku saabsan oo laaluush iyo isticmaale iyo khiyaana zawjiya iyo kadib been iyo nifaaq iyo cuquuq ulwaalideyn iyo wax lamid ah. waxaa dhici karta in dadku qaabkay u wada hadlaan wax ku saabsan oo afxumo iyo hadal adeeg iyo cay iyo wax lamid ah. waxaa dhici karta mid xagga maalka ku saabsan oo tuugi iyo dhac iyo boob iyo wax la mid ah. soo duduub oo dhaqan xumadaasi bulshada ku dhacda siba dhallinyaradeeda waxay yidhaahdaan waxa keena laba sababood: asbaab daakhiliya oo bulshada dhexdeeda ka timaada iyo asbaab khaarijiya oo dabadda kaga timaada. sideedabana qur-aanku wuxuu ina baray dadku haddaanay gudaha ka jabin inaan cadowga dabaddu jabin karin.